شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا Vladimir Putin waxa uu dhashay 7 Oktoobar sanadkii 1952 waxa uuna ku dhashay magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Ruushka St Petersburg waxa uu ahaa ilmaha ugu yar 3 caruur ah oo ay dhaleen aabba ka tirsanaa ciidamadii badda ee midowgii Sofiyeetka iyo hooyo ka shaqayn jirtay warshad walaaladii ka weeweynaa waxa ay dhinteen isaga oo aan dhalan markii uu dhameeyay waxbarashada dugsiyada waxa uu ku biiray jaamacadda St Petersburg isaga oo bartay culuumta sharciga muddo 5 sano ah oo uu baranayay sharciga sanadkii 1975 ayuu ka qalin jabiyay jaamacadaas isla sanadkaasna waxa uu ka shaqo bilaabay laantii sirdoonka ee midowgii Sofiyeetka ee KGB tababaro badan oo uu ku qaatay xarumo kala duwan ee dawladda midowgii Sofiyeetka waxa uu noqday sarkaal u qaabilsan sirdoonkii midowgii Sofiyeetka arrimaha dibadda muddo kadib sanadkii 1985 ayuu u socdaalay Dresden East Germany xilligaas oo bariga Jarmalku xulafo la ahaa midowgii Sofiyeetka 5 sano kadib halkaas oo ka shaqeynayay waxa uu dib ugu soo laabtay sanadkii 1990 magaaladiisa St Petersburg 16 sano oo uu ka tirsanaa hay'adii sirdoonka midowgii Sofiyeetka waxa uu ka qaatay darajada korneelnimo waxa uu 1991 iska casilay jagadaas waxa uuna ka tagay shaqadii basaasnimo xiliyadaas waxa burburay dalkii weynaa ee midowgii Sofiyeeti waxa uu ku biiray siyaasadda waxa uuna ka shaqo bilaabay maamulkii magaaladiisa Sen waxa uu la taliye u soo noqday maayarkii ama gudoomiyihii xukuumayay magaalada St Petersburg sidoo kale waxa uu joogooyin ka soo qabtay guddigii iyo xubnihii ku jiray maamulkii magaalada St Petersburg muddo sanado ah kadib sanadkii 1996 ayuu u wareegay Moscow oo ahayd caasimadda Ruushka waxa uu ku biiray maamulkii madaxweyne Boris Yeltsin sanadkii 1997 Yeltsin oo u magacaabay ku-xigeenka madaxa ilaalada madaxweynaha 2 sano kadib waxa uu ka soo dhex muuqday maamulkii sare ee Ruushka waxaana loo magacaabay mid kamid ah ku-xigeenada ra'iisul wasaaraha Ruushka isla sanadkaas 1999 ayuu madaxweyne Yeltsin u magacaabay ra'iisul wasaaraha Ruushka si ku meel gaar ah 8 bari kadib baarlamaanka Ruushka ayaa cod ku shaaciyay in Vladimir Putin uu yahay ra'iisul wasaaraha dalka 4 bilood kadib ramaadkii bishii December sanadkii 1999 ayaa waxa is casilay madaxweynihii dalka Boris Yeltsin sida dastuurka wadanka Ruushku dhigayo ra'iisul wasaaraha ayaa noqonaya madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka ilaa laga soo gaaro 7 May sanadkii 2000 ayuu isku ahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waqtigaas ayaa si rasmi ah u noqday madaxweynaha dhulweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu dhisay awoodda militari iyo mid dhaqaale ee wadanka Ruushka kaas oo dhaqaale ahaan ka hooseeyay 200 oo bilyan maanta waxa uu kor u dhaafayaa 2 trilyan Vladimir Putin ayaa waxa la gudoonsiyay abaalmarino aad u fara badan waxaana gudoonsiyay wadamo ay ka mid yihiin Vietnam, Venezuela, Serbia, Kazakhstan, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Faransa, China iyo kuwa kale sidoo kale Time of Magazine ayaa sanadkii 2007 u dooratay Putin shakhsiga sanadka The Person of the Year sanadkaas ayuu helay bilado aad u fara badan sidoo kale Forbes ayaa xustay inuu ahaa shakhsiga ugu awoodda badan dunida 4 sano oo xiriir ah 2013 2014 2015 iyo 2016 marar kale oo badan ayuu booskan galay Vladimir Putin dunidu waxay isweydiinaysaa kuma ayaa ka bedeli doona Vladimir Putin maamulida dhulweynaha Ruushka In the city, the cops are top of me. The project is full of bullets, the bodies is dropping. They ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings.